قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه المحاضرة والتي هي بعنوان التحذير من الاحتفال بالمولد النبوي لأخونا الشيخ نور عبد الله أبو فيصل، وذلك في دولة السويد في مدينة مالمö. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. walaalyaal, maantu ay tahay taariikhdu sida aada maqasheen bisha 11aad 6deeda 2018. waxaan rabnaa inaan kelmad kan idhaahno ciwaankii aada maqasheen lagu baraarujinayey ama bidcada maalinku ay yidhaahdeen ama ixtifaalka dabaaldega bisha mawluudka. awalan waxaad ogaataa ilaahay subxaanahu wa tacaala qad mana allahu calayna macaashira almuslimiin in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu risaaladiisa na soo gaarsiiyey, wuxuuna nooga tegey calىa maxajaة bayضاء layluha kanahaariha laa yaziiqu canha ila haalik. wuxuu nooga tegey nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam diin dhammaystiran. saa darteed wa atama calayna ilaahi subxaanaه wa tacaala dusheenana wuxuu dhigay alculamaa alrabbaaniyiin الذين يدافعون عن دينه ويصححون الأحاديث. culamadu nooga tegay rabbaaniyiin ah oo ridinaya bidcadoo dhan, muujinayana sunnada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam. waxaan rabay inaan xoogaa baraarujinta ayadaa ku sheego. waxaa aada sanad walba usii kordhaya una soo wareegtay halkan ilaa Yurubtooba soo gaartay ama westernka dabaaldega waxaa loogu yeero ixtifaalka dhalashada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam. awalan waxaa ku waajiba qof walba muslima inuu u hogaansamo amarka allah subxaanaه wa tacaala iyo amarka rasuulkiisa. alamru biitibaaci اlkitaabi wasunna waa waajib, sunno ma aha. qur'aankana waana tusinayaa inaan u xukun tagno kitaabka alle subxaanaه wa tacaala iyo sunnada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam. ama aayadaha alle subxaanaه wa tacaala qur'aankiisa ku jira aad iyo aad ayay u badan yihiin. qeyb ka mid ah ayaan micnihii idin tusin doonaa. waxaa ka mid ah qowl ilaahi subxaanaه wa tacaala intaana bidca iyo mawlidba la aadin
bal inaan ogaano aayadaha ku soo arooray in nabiga calayhi salaatu wasalaam la raaco sunnadiisa. lana cabdilxasan albasri ayaa wuxuu lahaa dad ayaa waxay sheegteen jaceylka nabiga calayhi salaatu wasalaam. ilaahay wuxuu ku ibtileeyey aayaddan uu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii wma kana limuؤmini wla muؤminaة ida qada allahu amra an yakuna lahum khيraة min amrihim wman yacsi اllaha warasuulah faqad dala ضalaala mubiina. aayaddaas waxaa nogula tilmaamaya uma sugnaanin wma kana limuؤmini wla muؤminaة ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum khيraة min amrihim wman yacsi اllaha warasuulah faqad dala ضalaala mubiina. waxaa nogula cadaynayaa qofna ikhtiyaar uma laha, qof muؤmin ah iyo haweeney muؤminada ikhtiyaar uma laha. marka alla subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ay wax xukmeen, ikhtiyaar ayaan leenahay, wax alla waxaan doonaan samaynayna inay yidhahda. ninkii sidaa sameeya wuxuu lumay baadidaasoo aad u cad u yidhi alla subxaanaه wa tacaala. waxaa kaloo alla subxaanaه wa tacaala uu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih wataquu llaha in allaha samiicu caliim. ayadan waxaa nogula digayaa inaan hor orodno ama horboodno alla subxaanaه wa tacaala iyo rasuulkii. alla subxaanaه wa tacala u le wataquu llaha in allaha samiicu caliim alla uu yidhi. alla subxaanaه wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay qul atiicu llaha waatiicu rasuul qul atiicu llaha warasuula. aayadahaas way tiro badan yihiin. qul atiicu llaha warasuula fain tawallow faina allaha laa yuxibu اlkaafiriin. markii gaalada lala hadlaya alla wuxuu yidhi muxamedow waxaad ku tidhaahdaa alla subxaanaه wa tacaala iyo rasuulkiisa warkooda yeela, haddii aad jeesataan ilahay subxaanahu ma jecla kuwa gaalada ah. aayad kale alla subxaanaه wa tacaala wuxuu ku leeyay ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha waatiicu rasuula wauli اlamri minkum fain tanaasactum fi shay faruduuhu ilى اllahi warasuula in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlآkhir dalika khayra waaxsanu ta'wiila. 3 shay ayaa la sheegay, atiicu اllah wa atiicu rasuul waa 2 wa uli اlamri minkum, ilaahay rasuulkiisa iyo xukaamtiina warkooda yeela. laakiin meesha waxaa la geliyay hada alcajiib ah fain tanaasactum fi shay waa nakira. nakiradu 3 shay hadday dhacdaba camuumay faa'iideysaa. yani siyaaqu shart hadday dhacdo oo sida hadda ah, ama siyaaqu nafyi ama ihbaat hadday dhacdo camuumkay faa'iideysaa cinda ahli الsunati waljamaca ama usuul اfiqi sida aan ku baranayba. marka wax waliba oo la isku khilaafo micnihii saasay u dhigantaa. waxaa loo celinaya faruduuhu ilى اllahi warasuula in kuntum tu'minuuna faruduuhu ilى اllahi warasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlآkhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila. marka wax waliba oo la isku khilaafo wma اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ilى اllah. ilahay wuxuu leeyay ثuma jacalnaaka calى shariicati min alamri faاtabichaa wla ttabic ahwaء aladiina laa yaclamuun inahum lam yugnuu canka min allahi shayئa waina الظaalimiina bacduhm أwliyaءu bacd wallahu waliy اlmuttaqiin. tashriica marka sharca lakum min addiini maa wasaa bihi ibraahim ilى aakhirida aayadaha kaloo micnihii aayadda inteeda dambe oo kusii xiga. tashriica waxaa iska laha ilah subxaanaه wa tacaala, isagaa loo xukum tagaa. sharca lakum min addiini maa wasaa bihi ibraahim, yaa sharciga iska leh ilahi subxaanaه wa tacaala ayaa sharci dejiye ah, isagaa sharciga iska leh. saa darteed waxaa loo baahan yahay inaan ku dayno nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam aan waxyaala micnihii usan samayn inaan la samayn. aayad kale alle subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay aayadda marka fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ilى اllahi warasuuli in kuntum waxaa lagu xiray tu'minuuna bilah, shardaa lagu xiray. haddii aad tihiin kuwa mu'miniina markaysaa oo ilaah rumaysan tu'minuuna biاllahi walyowmi اlآkhir dalika sidaasaa khayru waaxsanu ta'wiila. saasaa idin fiicno alla u leeyahay. waxaad isku qabsataan kitaabka iyo sunaha ku kala baxa, sidaasaa idin wanaagsan. ilahay aayad kale wuxuu ku leeyahay man yuطic الrasuula faqad aطaaca allah wman tawalaa fama arsalnaaka calayhim xafiida. qofka marka ilahay subxaanaه wa tacaala rasuulkiisa warkiisa yeela, ilahay subxaanaه wa tacaala warkiisu yeelay. rasuulkii lasoo diray, xikmada rasuulka loo soo diray maxay tahay? wma arsalnaa min rasuuli ila liyutaaca biidni اllah. waxaa loo soo dirayba waxay ahayd iطaacatan kaamila, in isaga warkiisa la yeelo, rasuulka warkiisa micnihii la yeelo. saasa ilahi subxana wa tacala usoo diray. wa ilaa rasulsha xikmadooda maxay tahay? waxa alle subxana wa tacala koonku keenay inay dadka balaaq wax gaarsiiyaan oo dadkooda ay wax u sheegaan. ilaah nuux uu yidhi dadkayga waxaa waaye leylan wa nahaaran ayaan wax u sheegayy, marka wixi aan u sheegayn waxba uma kordhin uu yidhi. marka waxaa loo baahan yahay in yani rasuulka warkiisa la raaca. aayad kale alle subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay wa atiicu اllaha warasuula walaa tanaasacuu. nasaaca marka aljidaalu walmiraa
waa la diiday sharcan in dadku ay diin un isaga murmaan ayadu ma banaano. ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyay marka haddii ay dhacdo oo inaad maanta oo dhan doodaan maxaa dhacaya marka wa atiicu llaha ilaahay warkiisa yeela iyo warasuulah iyo rasuulkiisa walaa tanaasacuu fatafshaluu waa fashilmaysaan oo watadhaba riixukum alle subxaana wa tacaala uu leeyahay wasbiruu ina allaha maca asaabiriin. mu'miniinta marka waxaa la rabaa in macnihii si ay quwadooda ay u kala tegin muranka iyo dooda tirada badanle inay iska dhaafaan. ilahi subxaana wa tacaala aayado kale wuxuu ku leeyahay wa atiicu llaha wa atiicu rasuula waxdaruu, taana waa digniin kale. ilaah iyo rasuulkiisa warkooda yeela iska jira. fain tawallaytum faaclamuu, waxaa waaye haddii aad jeesataan ogaada rasuulkeena waxaana balaaq aan ahayn dadka inuu gaarsiiyo ma laha. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hidaayatu irshaad muu lahaa mise hidaayatu tawfiiq uu lahaa? nabiga hidaayatu tawfiiq ma lahayn. inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ilahi u leeyahy. nabigu wuxuu lahaa calayhi salatu wasalaam hidaayatu irshaad, inuu dadka jidka wanaagsan ugu yeero sida rasushii micnihii alla subxaana wa tacaala uu soo daray isaga ka horreeyeyba rasushii uu soo diray siday dadku wax ugu yeerayeen unbuu ugu yeeray. laakiin hidaayatu irshaad waxaan ka ahayn ma lahayn, hidaayatu tawfiiq ma lahayn. adigu ma hanuunin karaysid qof aad kacsho alla subxana wa tacaala uu yidhi. waxaa saasoo kale la mid a aayadaha ee alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa tajcaluu ha ka yeelina ducaaءa rasuuli baynakum ka ducaaءi bacdikum bacda. adinku markaad isu yeeraysaan oo isu dhawaaqaysaan sida isugu yeeraysaan oo kale ha ka dhigina, micnihii rasuulka ha ugu yeerina. maxaa dhacaya? qad yaclamu allahu aladiina yatasallaluuna minkum liwaada falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibhum fitna oo yusiibhum cadaabun aliim. laba mid baad sugaysaa dadka khilaafaya amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam, ama in duniyada lagu fidneeyo ama in aakhira alle subxaana wa tacala cadaab uu keeno. aayad kale alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih wa anahu ilayhi tuxsharuun. marka waxaad ogaataa rasuulka marka uu ku yeero alla subxaana wa tacaala yeeritaanka iyo rasuulka in warkoodii la yeelo. ilahi wuxuu le istajiibuu lilaahi walirasuul, waa waajibna saaran marka inaan aqbalno nidaaga ka imaanaya alla subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa. ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy tilka xuduud ullah, taasi waa xuduud alla subxaana wa tacaala. waman yutic allaha warasuula yudkhilhu janaatin tajri min taxtiha alanhaar khaalidina fiiha wadalika alfawz alcadiim waman yacsi allaha warasuula wayatacadda xuduud allah yudkhilhu naaran khaalida fiiha walahu cadaabun muhiin. qof waliba oo xuduuda alla subxaana wa tacaala u sameeyey gudba oo nabiga calayhi salaatu wasalaam alla warkiisa iyo rasuulkiisa warkooda diida ilahay naar u diyaariyey. qof alle qofka raaca wuxuu alla subxana wa tacaala uu yidhi iyo rasuulkiisa jannu alla subxana wa tacala bimacna uu siinaya. waxaa saasoo kale la diiday in loo xukun tago waxaan xukumka alla subxaana wa tacaala aan ahayn. alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aaminuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila taaguut alla subxana wa tacala uu leeyahay. marka waa laga digay in iyada taaguutka loo xukum tago oo alla subxaana wa tacaala uu diiday ilaa aakhir alla subxana wa tacala aayadda uu ku yidhi waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shayطaanu an yudilhum dalaalan baciida. wallahu subxaana wa tacala aayad kale wuxuu ku leeyahay inama kana qowlu lmuminiin ida ducuu ila اllahi warasuuli liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waطacna waulaa'ika hum lmuflixuun. ilahay aayad kale wuxuu ku ley wma ataakum rasulu fakhuduuhu wma nahaakum canhu faاntahuu wاtaquu اllah in allaha shadiid اlciqaab. aayad kale alle subxana wa tacala wuxuu ku leeyahay yani wma ataakum rasulu fakhuduuhu wuxuu rasuulka idin limid qaata wuxuu idinka celiya ka taga. aayad kale alle subxana wa tacala wuxuu ku leeyahay laqad kana lakum fi rasuuli اllahi uswaة xasana liman kana yarju اllaha walyowm alaakhir wadakara allaha kahiira. aayad kale alle subxana wa tacala aayaddaasna alle subxana wa tacala wuxuu ku tilmaamay ku dayasho inay noogu sugan tahay nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam. ayib aayad kale alle subxana wa tacala wuxuu ku leeyahay wالnajm ida hawa ma dala saaxibkum wma gawa wma yantiqu can اlhawa in huwa ila waxyun yuuxa. aayadahaas way tiro badan yihiin, intaasba aan kaga kaaftoonna oo ku tusinaya raacidda nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam. axaadiista waxaa ka mid ah xadiid abi hurayra oo imaam albukhaari uu ka soo saaray kitaab اlictisaam. nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay kula ummatii yadkhuluuna aljanna ila man aba, ummadayda ayagoo dhan jannada way galayaan ilaa qofka isaga diiday mooyaane. saxaabadu way la yaabeen waxay yidhahdeen rasuulka allow yaa jannada diidaaye. nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man aطaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa. qofkii aniga warkayga yeela jannaduu galaya, qofka diidana isagaa diiday.
xadiidka kale raafic abi raafic radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasul lah sal allahu alيh wasalam laalfiyana axadukum mutakan calى arikatihi yaأtihi اlamru min amri mima amartu ow nahaytu canhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitaabi اllahi tabacnaah waila falaa. xadiidka isaga abi daud ibn maaja iyo طaxaawi iyo keyrihim bisanadin saxiix ay kusoo saareen albanin waa u saxinaya. marka wuxuu leeyahay yaan la helin mid adinka idinka mid oo sariirtiisa ku tangiigsan. waxaa u imaan doona amar amaradeeda ka mid ah wixii aan dadka faray ama wixii aan ka celiyey ah. wuxuu dhihi doonaa wax alle wixii aan kitaabka alle subxaanahu watacaala aan ka helno aan iska raacno, kitaabka waxaan ka helno aan ku dhaqanno. marka qofka isaga waa u lumay, sida xadiidkan micnihii uu tilmaamayo xadiid miqdaam ibn macdi alkarbi radi allahu tacala su u tilmaamaye alaa inii uutiitu lqur'aana wamithluhu macahu nabigu leh alayh salam. marka sunnada ilahi wuxuu ley waanzalna ilayka dikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim walacalahum yatafakaruun. albayaan waa kitaabka alle, mubayin wax cadaynaya waa sunada nabigeena calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo micnihii meesha ku jira nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkan naftiisa wuxuu ku leeyahay waxay leeyihiin nafs hada alxadiid alaa yuushaku rajul shacbana calى arikatihi yaqulu wuxuu leeyahay yaan la heli mid adinka idinka mid oo dhirgan oo sariirtiisa ku tangiiga oo jiifa. wuxuu leeyahay calaykum hada alqur'an yani ilzamuu biha qur'aankan qabsada oo haysta. fama wajadtum fiihi min xaraamin faxarimuuh. wixii xaraama kitaabkan u xaaraantilmeyna xaaraanta yeela, wixii kitaabka uu ogolaadayna ogolaala. nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wainamaa xarama rasuula allahi kama xarama allah. marka waa isku mid kitaabka alle wixii lagu xarimay iyo waxa sunada nabigeena calayhi salaatu wasalaam yani lagu xarimay. xadiidka isaga naftiisa waxaa soo saara tirmidi, imaamu xaakim musadragiisu isagoo ku siixinaya bisanada saxiixu le albanin uu ku raacay. xadiid abi hurayra wuxuu leeyahay waxaan idinkaga tegay laba shay-ayni lan tadiluu bacdii abada. muxuu yahay malig ayaa soo saara, xaakimna yani musadragiisu kusoo saara. waa xadiid sax isaga naftiisa. labada shay waa kitaabka alle iyo sunada nabigeena calayhi salaatu wasalaam. saa darteed ayadoo intaasoo adile ay jirto in micnihii la dul maro oo qofkii uu yidhaahdo waa bidca mawluudka laakiin waa bidca xasana, waa shay wanaagsan, wax saxan maaha. saa darteeda culimmadu waxay leeyihiin laa yajuuzu ma banaana mukhaalafatihima fi shayin min dalika ra'yi o ijtihaad o qiyaas. waa imaam shaafici risaalada oo ahaa kitaabka usuul fiqi ugu horeeyey oo laga aasaaso ah cabdiraxmaan ibn mahdi codsiga uu ku sameeyo kitaabka sheekh uu ku sameeyey imaamu shaafici raxmat ullahi caleyh. wuxuu leeyahy imaamu shaafici raximah llah fi aakhir yani raxima allahu risaalada wuxuu ku leeyahay laa yaxilu lqiyaasa walkhabru mawjuud. yani qiyaasku ma banaana. waxaa waaye laadaas marka nahyiga ay naqonayso waxaa waye maala laa yaktasil axadukum fi lmaai raakid oo kale laa yaktasil haddii ficilka mudaarica ay jasmiso laada waa nahyi markaas ayada ah. meeshan sheekhu marka wuxuu ku leeyahay laa yaxilu lqiyaas walkhabru mawjuud. qiyaaska ma banaana iyadoo khabarkii micnihii la heli karaa, yani xadiidka nabiga iyadoo la helaayo qiyaas qofku inuu iska qaato culimaa tiri wax lamid ah yani ma banaana. mutaakhiriinta min culamaa usulin waxay leeyihiin ida warada alathar baطla الnadr. haddii athar uu soo arooro, atharka marka waa lagu iطlaaqaa xadiidka, marna waxaa la yihahdaa cinda alfuqaha athar waxay u yaqaaniin yani hadalka mawquufka saxaabiga u yaqaaniin. usuuliyiinta ahlu xadiidkana waxay leeyihin mawquuf saxaabiga leeyihin, kuwan athar ay yihahdaan, lakin atharku waa lagu iطlaaqaa xadiid waa la yihahdaa mararka qaar. waxaan rabaa marka inaan usoo degdego xagga hoose. ixtifaalka mawlidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ma jirin fi nabiga zamankiisa calayhi salaatu wasalaam, walaa fi cahdi khulafaa alarbaca, afartii khulafada xilligoodana ma jirin, walaa fi cahdi taabiciin wa itbaacu taabiciin ma jirin. a'imat larbaca abu xaniifa iyo imaamu malik iyo shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo inta ka dambeysana ma jirin. nabiga calayhi salaatu wasalaam laqad caasha nabiy sal allahu alayh wasalam bayna ikhwaanihi nabiyan wa rasuula. walaalihiis wuxuu dhex joogay maka 13 sano, madiina 10 sano ayuu joogay. nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii uu sameyn lahaa falow kaana alixtifaalu lmawlud, haddii mawludku u yahay wax sugan, qad facalahu nabiy sal allahu alayh wasalam, ficilkiisa iyo qowlkiisa iyo taqriirkiisa waa noola soo gudbiyey. hadduu markuu ahaan lahaa ficil nabiga uu sameeyey, saluu kamaa ra'aytumuunii usalli, waana soo gaartay. waxaana soo gaaray taqriirkiisa oo nabiga calayhi sala slam baashaan maasanugooleed le dabda la yidhaahdo, khaalid ibn waliid waatu u yidhi anigu ma rabee, hadda adigu aad doonaysid yani cun. aqwaashiisina waa taqaanaa nabiga calayhi salatu salaam. in badan nabiga hadalkiisa inama alacmaalu binniyaati wa inama likuli imri'in maa nawa, aqwaasha iyo afcaasha nabiga calayhi salam wayna soo gaareen, taqriirkiisana waana soo gaareen nabiga alayh salam. haddii intaas uu ahaan lahaa
mawlidka soo nama soo gaareen la nuqila ilayna ida kaana الnabiy sal اllahu alيه wasalam sala salaat اlkusuuf bal u fiirso haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada la yihahdo salaat اlkusuuf qoraxda markay dhacdo ama bisha hal mar aba laba mar ah salaat اlkusuuf laga soo guuriyey haddii hal mar iyo laba mar riwaayad waxay leedahay hal mar riwaayadna waxay leedahay laba mar inuu dukaday uu dadka uu dujiyey salaat اlkusuuf noola soo guuriyey oo noola sheegay kayfiyatuha wamaa yuqra'u fiiha kayfiyadeeda iyo waxa lagu akhrinayo iyo qaabka loo dukanaayo salaat اlkusuuf oo hal mar ama laba mar keliya dhacday waxaa ka timid 37 riwaaya 37 riwaayadood ayaa ka timid salaada la yihahdo salaat اlkhawf waxaa waaye jaaءat riwaayaat اlqaliila salaat اlkhawfka oo cabsida salaada lagu dukado wax yaray ku timid fainahum ya'lamuuna kama ta'amulu al subxana wa tacala markuu leeyahay suurat الnisaa gacanta marka lala soo gaaro oo kale waxaa waaye wax yaraa micnihii meesha ayada ah ka yimid bal u fiirso haddana waana soo gaartay waana soo gaartay salaat اlkhawf kayfiyadeeda iyo wax lagu akrinaya waana soo gaartay waxaa lamid ah salaada ciida waxaana soo gaaray salaat اlciid nabiga calayhi الsalatu wasalaam wuxuu sheegay kayfiyatiha wma yuqra'u fiiha wa fii zamaniha wa makaniha wa sunaniha wa amriha wa nahyiha waa nala soo guuriyey salaat اlciid idan macquul ma tahay in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam yani 23 sannadood waxyigii uu degaayey hal xadiid oo ka mid ah ixtifaalka mawludka nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam kayfiyadiisa iyo zamanka la samaynayo iyo makaanada islaamka uu ku leeyahay hal xadiid inuusan la soo gaarin macquul ma tahay adinkaan idin daynaya arrintaas ayada waxaa ku soo xiga nabiga calayhi الsalaatu wasalaam axaadiid ayaa ka soo arooray wuxuu leeyahay xadiid laga soo arooriyey cabdilaahi ibni camar ibni caas xadiidkii yani oo uu tilmaamayey dakaltu اlmasjida wuxuu leeyahay ninka la yihahdo cabdiraxmaan ibni cabdirabi اlkacb masjidka ayaan soo galay faidaa cabdulaahi ibni camar ibni caas jaalisan fi dili اlkacba cabdillahi ibn camr ibn caas oo kacbada dilkeeda hoos harkeeda fadhiyaan ugu imid wuri wاnnaas mujtamicuuna calayh dadkana ay ku kulansan yihiin agtiisa ay fadhiyaan waxaa marka wuxuu leeyahay cabdillahi ibn camr qaal wuxuu yihi markaas wuxuu leeyahay faqaala wuxuu yihi kuna maca rasuuli اllahi sal اllahu alيه wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam la jirkiisa ayaan ahayn oo la soconay fi safarin safar ayadoo la jiro fanazalnaa manzilan waxaa waay meel ayaan degnay famina wuxuu leeyahay man yuslixu khibaahu khiba waxaa la yihahdaa marka waa meel yar oo teendha yaroo la dhisanaayo oo markaysaa si qoraxda looga harsado khiba la yihahdaa asalkana marka hore waxay leeyihiin burka iyo shaciirka ayaa asalkiisa micnihii waa la yihahdaa bacd culamaa saasna way leeyihiin marka kuwa anaga naga mid ah ama raashinkiisa shaciirkiisu hagaagsanaya ku fasir ama waxaa tirahdaa khibadiisa oo harka meesha uu ka harsan lahay u dhisanayay wa mina waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay man yantadilu xadiidka isaga marka waa marfuucu ku warinaya ogow faqaala nabiy sal alay waslam marku le waa marfuuc xadiidku ayib waxaa kaloo naga mid ahaa ayuu leeyahay wa mina man yantadilu bimacnaa wuxuu leeyahay dad ayaa naga mid ahaa oo rami iyo musaabaqaad i wax samaynayo waxaa kaloo lagu fasiray sahamka falaarta marka micnihii la dul saaro gamuunka marka la dul saarana ayadu waa la yihahda ama qof meel gurigiisa wax ka soo saarayana oo wax samaysanayana waa la yihahdaa wa mina man yantadilu intaasoo dhan micno waa uu leeyahay wuxuu leeyahay wa mina waxaa naga mid ah man huwa fi jashrihi yani jashrigana waxaa la yihahdaa ayadana markaysaa qof meel iska jiifaa la yihahdaa dad meel jiifo oo ayagu waxba samaynaynin ayaa la yihahdaa jashrka waxaa wal qoom yabituuna makaanihim saasaa jasr yihahdaa kuwa iska jiifa meeshooda oo waxba aan samaynayninna way naga mid ahaayeen wuxuu leeyay id naadaa munaadi markaasaa mid dhawaaqay u dhawaaqay id naadaa munaadi rasuuli اllahi sal اllahu alيh wasalam aلsalaaةu اljaamica saasuu yidhi faاجtamacna ilى rasuli اlahi sal اllahu alيh wasalam nabiga xaggiisa aan kusoo kulanay waa nimid inahu markaasuu nabigu wuxu faqala wuxuu yidhi inahu lam yakun nabiyi qabli ila kana xaqa calayhi an yadulla ummatahu calى khayrin nabigu marka wuxuu leeyahy ma jiro yani nabi aniga iga horreeyey ilaa waxaa micnihii u ahaa mid u caddeeya ummadiisa xaqa u caddeeya wixii isaga uu yaqaano oo khayr ah ayuu u sheegaayey wuxuuna ugu digaayey wax isaga uu yaqaano oo iyaga ay aqoonin oo shar ayuu ugu digaayey xadiidka marka qisuu leeyahay ummadaydan aakhirkeeda waxaa imaan doona wain ummatakum haadihi wuxuu leeyahay jucila caaqibataha awaluha wayasiibu aakhiruha balaaun wa umuur tunkirunaha ummaddan wanaageeda wuxuu ahaanayaa kuwoodii hore gadaashooda dambana aakhirkeeda dambana waxaa imaan doona
waxaa waye wax ayaa ku dhici doona u leeyahay nabigeena calayhi salam bala ayaa ku dhici doonta waxay la imaan doonaan arrimo aad nacaysaan markaasaa fidno ayaa imaanayso kala micnihii kala farqin doonta ummadan aakhirkeeda dambe waa markaasaa wayajiiu lfitanu fayaqulu lmu'minu hadihi muhlikati wuxuu dhihi doonaa qofka mu'minka fitantu markay aad u badato midana waa midda aan ku halaagsami lahay saasuu dhihi doonaa xadiidkaas iyo xadiidka kale oo la mid ahba wuxuuna tusinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuusan waxba ummadan u qarin xadiidka cabdillahi ibni mascuudna lamid ayuu ahaa oo isagu naftiisa xadiid sax ah nabiga calayhi salatu salam wuxuu leeyahy ma jiro nabi maa min nabiyin bacathahu allahu fi ummati qabli ila kana lahu min ummatihi xawaariyun waasxaab ya'khuduuna bisunatihi wayaqtaduuna biamrihi marka ma jiro nabi aniga hortayda alla subxana wa tacala uu soo saaray uu soo diray ilaa wuxuu lahaa xawaariyiin ayuu lahaa oo markaysa sunadiisa qaadanaysa hadigiisana ku dayanaysa xadiidkaasna xadiidkaa kale ayuu isaga naftiisa uu micnihii lamid ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam saan tilmaamay 13 sano ilaa iyo 10 sano 20 iyo yani 20 iyo intaasoo sano ma dhicin 23 sanadood mawlidka ma dhicin ixtifaal mawlid ma dhicin 40 sano oo khulafadu ay haayeenna abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali yani waxay isku noqonaysaa marka 41 sana ilaa 23 sanadood waa 64 sano mawlidka lama hayo min bacdi dalika waxaa yimid dowla umawiya timid waxaa la yihahda wa makata 70 ilaa 80 sana 70 sano ilaa 8 sanadood dowla umawiya ay joogtayna ma xasal mawlid ولا أحد منهم احتفل mid ayaga kamid oo احتفاalayn lama hayo ثuma jaء dalika dowlaة الcabasiya 53 sana ma saara ma xasal mawlid mcigana waxay joogeen 50 sano ay joogeen mawlidka ma dhicin waa dowla cabasiya dadkii ugu horeeyey oo sameeyey markii ay ahaayeen dadkii ugu horeeyey oo sameeyey intaanan gaarin imaamu malik aan ku daro imaamu malik wuxuu leey raxmatullahi calayhi imaamu daaru lhijra wuxuu u arki jiray afcaasha ahli lmadina min masaadir tashriic waa bacda isaga iyo dadaa la fardiyooy qolka isaga ahlulmadina imaamkooda waa 40 sano dejinayey wuxuu leeyahay imaamka wuxuu u arkaa afcaasha ficilku ay samaynayaan ahlulmadina min masaadir tashriic saasuu u arkaya 40 sano dejinayey imaamu malik kitaabkiisa laa salbiyan walaa ijaabiyan yajuuz walaa yajuuz midna laguma hayo mawlidka waa banaan yahay ima banaan 40 sano dejinayey masjidka nabiga calayhi salatu wasalaam imaamu daar hijra ma laga hayo imaamu daar hijra waxaa ogaataa waxaa laga soo guriyaa wuxuu leeyahay kitaabkiisa naftiisa looga soo guriya yaqulu wajadtu ahla baladihi yafcaluun ahla beledkiisa sidaas ayay samaynayeen fi kitaabihi lmuwata saas oo ku leeyahay xadiid waaxidan kitaabkiisa lagama hayo dadku waxuu ka soo guriyey xadiidtiisu waa thulaathiya waxaa jira qayb thulaathiya la yidhaahdo oo waa ka sanad gaaban yahay marka qaar imaam albukhaari inkastoo bukhaariga naftiisa thulaathiyada laga heli karo haddii raawiga sanadkiisa u dheeraado cimrigiisa ay soo gaari karaan haddana isaga thulaathiya laga helaa thulaathiyada waxaa ula jeedaa 3 qof keliya ah nabigu galaya xadiidkiisa wuxuu wax ka wariyaa waxa uu ka wariyaa rijaal malik waxaa kamid ah naafic wuxuu ka wariyaa maxamed ibn shahaab azuhri imaam zuhri waxa uu ka wariyaa yaxya ibn saciid alansari waxa uu ka wariyaa hishaam ibn curwa waxa uu ka wariyaa maxamed ibn munkadir waxa uu ka wariyaa yaxya ibn yaxya allaythi alandalusi oo maqrib marka dambe aaday iyo kuwo kaloo tiro badan ardaydiisana waxaa ka mid ah dadka uga caansan imaam shaafici sufyaan ibn cuyayna iyo sufyaan athawri marka sidee ku dhacaysaa intaasoo dhan ayadoo la soo gaaray inaan wax war aan la haynin oo aan mawlidka waxba laga haynin kitaabkaasna aan waxba looga haynin muwata imaamu malik waa wax cajiib ah waxaan rabaa marka laba shay inaan ogaano marka hore wax weliba horta la samaynaayo camalka waxaa loo shardiyaa in kulu camalin yataqarabu bihi lmuslim ila allahi subxaanahu wa tacala ila rabbihi caza wajal walaa buddan lahu min sharطayn camal weliba oo la raba in la sameeyo laba shardi waa in laga helo midka u raxaaba ikhlaasa lilahi subxaanahu wa tacala ikhlaas in laga helo kow wa thaniyan waxay tahay waxaana daliil u ah xadiidka ikhlaaska waxaa daliil u ah xadiidka cumar ibn khataab radi allahu tacala canhu inama alacmaalu binniyati wa inama likuli imri'in ma nawaa faman kanat hijratuhu ila allahi warasuulihi fahijratuhu ila allahi warasuulih waman kanat hijratuhu ila dunya ila aakhiri xadiid bukhari muslim midda labaad waxay tahay mutaabaca camalkan aad samaynayso mawluudka haddii sax u yahay nabiga kaga daya alayhi salam nabiga ma sameeyey intaasoo hadda waxaan sheegnay oo sanad aan sheegnay haddii intaas nabiga uusan samayn maxay diinta u taqaanaa bidca loo yaqaana camalka thani waa mutaabacata nabiy sal allahu alayh wasalam wa hadihi almutaabaca laa tataxaqaq ila ida kana alcamalu muwaafiqan lishariicati fi umuuri minha muwaafaqada nafteeda ma suurtogalayso
ilaa asalkeedo laga helo arrinta soo socota. koo waxay tahay sababta in la helo, sababta camalka aad samaynayso inuu shareecada u waafaqo, haddii kale ma suurtagalayo. tusaale ahaan sababta ugu horreya waxaa waaye faida tacabada الإنسان lilahi cibaadة maqruunata bisabab laysa sharciya fahuwa marduudu calى saaxibiha. haddii adoonka uu sameeyo cibaado, ila mawlidku waa cibaado diinta lagu soo daraayo. haddii qofka cibaado uu sameeyo oo cibaadadaas ayada aan wax nasa kitaabka ayada aan looga haynin, waxaa waaye waa lagu soo celinaya. rajul tusaale ahaan haddii qofka uu nooleeyo habeenka 27 bisha ramadaanka bisha micnihii shacbaanka rajab haddii uu nooleeyo, sababtan ugu dhigaya rajab 27 waa habeenkii nabiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam. waxaan leenahay nacam nabiga waa la dheelmiyey calayhi salatu wasalaam, laakiin maxaa daliil u ah habeenka 27 inaan micnihii cibaado aan ku qaas yeelno oo aan cibaado aan noolayno? maxaa daliil u ah? sababto waan ognahay waa nabigaa la dheelmiyey. marka sababta nabiga loo dheelmiyey micnihii taasaa keliya kugu filan. idan waxaan leenahay taas ayada ah cibaadada noocaas o kale oo la samaynaayo waa bidca. yani sababtiyaa lala xiriirinaya, sababtaa la filan. nabiga ma sameeyey calayhi salaatu wasalaam? maya. habeenkaas ixtifaal ma sameeyey 27 bisha rajab? maya. sababta marka waa inay waafaqdo kitaabka alle iyo sunaha nabiga alay slam. midda labaad waxay tahay jinsiga waxa uu samaynaya falaa budda an takuna alcibaada muwaafiqan lisharci fi jinsiha. jinsigeeda ayada nafteeda nooceedu waa in micnihii shareecada islaamka ay waafaqdo. falow tacabada alinsaanu lilahi cibaada lam tushrac fi jinsiha, haddii uu ku caabudo ilaahay shay oo jinsigeeda nooceedaba isaga wax kaga horey aysan jirin, ayada nafteeda lama yeelayo. tusaale ahaan yani waxaa waye hadiga qofka micnihii wata oo raba inuu xoolaha u qasho maalinka jamrat alcaqabat alkubra lasoo turto, waa musdalifa marka laga soo tago salaada subax kadib oo la yimaado jamaraadka oo la turto, waa in qofka uu madaxan u xiirto xoolihii uu qasho hadigii duxadii micnihii markii la samaynayay adaaxi. ayib adaaxida markii la samaynayey haddii uu yihahdo farsan qalaya udxiyada, farsan ka dhiga hadduu yihahdo lagama aqbalayo. sababtoo ah sharciga wuxuu sheegay bahimat lancaam uu sheegay oo wuxuu yidhi ama geel hala qolo ama ari hala qolo ama lo hala qolo, farasi meesha kuma jirto. marka jinsiga nooca la samaynaya nafteedu haddii shareecada ay khilaafto ayada nafteedu waxaa way cibaadada wax ka jira ma laha. midda labaad waxay tahay qadarta waxa la samaynaayo. tusaale ahaan salaada duhur ama casr ama maqrib waxaan ognahay rakacooyinka ay leeyihiin. hadduu yihahdo 5 ragcadood aan dukanayo salaadii duhur, waxaa leeyahay cibaadada ayada ah lagama aqbalayo. midda kale oo ku xigta afraad waxay tahay kayfiyadu nooca wax loo samaynaayo. haddii qofku uu yihahdo waan weysaysanaya, weysadii waxaan ka bilaabaya lugaha, kadib madaxa ayaan masaxaya, kadib waxaa waaye markaasaan micnihii gacantii dhaqaaya, marka u dambaysaan wejiga dhaqaaya, waxaa la leeyahay wadu'aka baatil, weysadaada waa baatil. maxaa dhacay? liannaha mukhaalafa lisharci fi lkayfiya, kayfiyadii sharciga uu sheegay ayay khilaafsan tahay, marka wax ka jiraayo ma laha. waxaa kaloo lamid a zamaanka iyo makaanka sida mawlidka oo kale. haddii qofku uu yidhaahdo waxaan xoolihii qalaya maala tusaale ahaan yani zamaanka xoolihii adxiyada waxaan qalanayaa hadigii aan watay waxaan qali doonaa 8 bisha oo kale yoma tarwiya maalinka ka horeyso, ama yoma tarwiya xoolihii maa la rabay maalinkii alxaj akbar maalinkii in la qasho la rabay, wuxuu leeyahay waan sii qalaya xoolihii ayadoo carafadiiba la gaarin, maalmihii xoolaha la qalay la gaarin. haddii uu yihahdo xoolihii waan sii qalanaya oo kale lagama yeelayo. sababto waxay tahay xilliga looga talagalay ayaa xoolahaas ayada la qali karaa. marka waxay ku xariisan tahay zamaan ay ku xariisan tahay. zamaankana waxaa waaye waa tii hadda aan soo tilmaamay, yani marka la yimaado jamrat alcaqaba oo 7 xaba uu turto, xoolihiisuu qalanaya, timihiisuu xiirinaya, taxallul suqra ayaa la yihahdaa. hadduu maalinkaa tawaafka sii raacin karana iyo sacyiga uu labadaba ka taxallul noqdana waa sida nabiga uu sameeyey alayh salaam. ninkaan awoodayninna waa ma xanuunsan, wuxuu kusoo laabanaya marka minuu kusoo laabanaya subaxdii kale ama dib u dhiganaya tawaaf alwadaac xilligeedii uu samayn karaa tawaaf alifaada iyo tawaaf alwadaac maraa laisla samayn karaa oo wax dhiba ma laha, halkaas maraa kugu wada filnaanayo. marka hadduu yihahdo lakin xoolihii waaba sii qalanaya ayadoonba xajkii la samaynin, yani ma suurtogalayso. waxaa kaloo kusii xiga makaanka. haddii uu yihahdo qofku waxaan ku ictikaafaya maalan gurigeyga ictikaafka, waxaa la leeyahay maya ma soconayso. sababtoo ah ictikaaf waxaa looga talagalay masaajid in lagu sameeyo. gurigaaga makaanka adiga aad joogtaan ku ictikaafaya lagaama yeelayo, sababtoo cibaadadaas iyada ah ma waafaqsana. marka 6daas shardi ayaa mutaabacada la yihahdaa. haddii 6daas shay aan la haynin ma suurtogalayso. saa darteeda sheekh cabdilcaziz bin baaz raxmat ullahi calayhi wuxuu leeyahay waqad habata can asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wa can asalaf saalix bacdahum taxdiiri min albidca.
saasuu fataa micnihii uu ku tilmaamaya taxdiir min albidc markuu kitaabkiisi wuxuu leeyahay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii salafka waxaa laga dhaxlay iyo dadkii ka dambeeyey inay bidcada ka digaan watarhiibi minha wama dalika ilaa liannaha ziyaada fi diin wuxuu leeyahay waxayna ku tusinaysaa arrintaas ayada inay tahay wax diinta lagu soo kordhiyey ma banaan uu leeyahay calaa kulli xaal hadal aad u dheer ayo masalaas ayada iyo mawliidka sheekh uu kaga hadlayay bidcadu marka maxaa la yidhahdaa ma raba inaan waqti badan sii geliyo bidcadu waxaa la yidhahdaa aliqtiraacu fi shay min gayri mithaali saabiq waa shay qofka micnihii isaga uu sameeyey oo wax kaga horeeya aysan jirin xagga luqada aliqtiraacu cala shayin min gayri mithaali saabiq tacriifyo badanna way leedahay oo waxaa daliil u ah marka bilow inay tahay wax adigu aad bilawday wax kaaga horreeya jiray ila mawliidka waxaa bilaabay dadkii ugu horreeyey oo bilaabay waxay ahayn faatimiinta ay ahaayeen faatimiinta ayay ahaayeen dad caqiidadooda faasid ay tahay ayay ahaayeen marka waana imaan doonaa gadaalan ka sheegaynaa bidcada marka waxaa waye noocaas badiicu samaawaati walard ay allah subxaana wa tacala isagaa bilaabay inuu abuuro samaawaadka iyo dhulka isagaa bilaabay ama xagga sharciga waxaa la yidhaahdaa aطariiqatu fi diini mukhtarica tudaahi sharc yaqsud bisuluki calayha almubaalaqati fi tacabud illahi subxaanah kaasa tacriifkaasaad u malaysaa marka inuu soo wada kulminaayo oo uu hal meel micnihii ka wada dhigaayo waxaad ogaataa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuuna faray in dadka muslimiinta ay isku xiraadaan wanahahum can atafaruqi walikhtilaaf asalka mawliidka in dadka lagu kala qaado oo waxaana jirin dadka diinta looga dhigo ilahi subxana wa tacala waa uu diiday ilahi subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyay wactasimuu bixamdi illahi jamiica walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون marka asalku ikhtilaafka iyo tafaruqa waa xisbiyada iyo gaalada ayaa asal u ah ila kelimad xisbi ama tafaruq quraanka kuma soo aroorin ilaa waa madmuuma hal xisbi ayaa jira waa xisbiga Allah subhanahu wa ta'ala oo guuleysan doona wuxuu leeyahay marka walilmuxaafadati cala hadihi alwaxda walictisaam bixabli illahi wa cadam tafaruq waa waajib marka in la isku micnihi dadka muslimiinta isku xiraadaan oo aan la kala tegin oo xerga Allah subhanahu wa ta'ala la qabsado ilaah subhanahu wa ta'ala sidaas ayuu na faray ilaah wuxuu leeyahay ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaruna aluu leeyahay marka waxa Allah subhanahu wa ta'ala na faray waxay tahay inaan kitaabka alle aan raacno iyo sunnada nabigeena calayhi salaam markaysa isaga sokadiisana qolooyin kale inaan iska dabagalin saasoo kale waxaa la celiyey kamaanaha can itibaaci ma wajada calayhi alaabaa wa mithlu mashayukh wa ahli albidع والأهواء في الأمور المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ساسو كله waxaa la celiyay in la iska dabagalo dadka ahli bidcada ah oo khilaafaya sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ma banaana waxaa loo baahan yahay qofka mu'minka ah marka oo muslimka inuu ogaado waxyaalaha laga celiyey ilahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هذه آباها ويا ميدا وحبا كلا وجين هذول مسكت بقليسا إلهي سبحانه وتعالى آيات كلا وحكوا له وإذا قيل لهم هذه لوير هذا اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى العذاب السعير هذيك ورن واحد اسكت بقلا أيام بالشيطان ونارته ويراي وكما جاء في كتاب الله العزيز والأمر باتباع ما أنزل الله في كتابه ونهى عن اتباع ما وجد عليه الآباء ودعاة الهوى والشيطان in dadka ducaadka shayaadiinta ah la iska dabagalo iyo dadka ahlu bidع iyo khuraafaadka oo dadka aan ka celinaynin xaqa runtan aan u sheegaynin wallahi waxaan naasix ku ah ninka ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku dhaweeyey sunnada nabiga alayhi salaam ilahi wuxuu leeyahay walow kaana shaytaan yadcuuhum ila cadaabi saciid ducaat cala abaabi الnaar cala abaabi jahannam dalika waxaa ka yimid axaadiis صariixa can nabi rasul llahi sal allahu alayh wasalam تحث الأمة على التمسك بالكتاب والسنة أحاديث آد وعضيا كإيمانيس نبي عليه السلام تدكو عضينيس وضد الصحة وعضينيس وحين ديديس مرك وإن فيهما النجاة والعصمة كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تذلوا كتاب الله وسنة نبينا عليه السلام وعضيا ولتك وإلهي كتاب كيس سنة تاس أن وحكم تقنا وحين كصهرة وحاوي التمسك بكتاب الله وسنة الهداية والنجاة وعدم ضلالة المؤدي للهلاك في الدنيا والشقاء في الآخرة قفك أباهن إنه آخرها لاقسمه waxaa waaya iska raaco waxa isaga uu leeyahay amaba bidcadiisa ha raaco aakhira ayuu micnihii la kulmaaya nabiga calayhi salatu salaam waatii uu yihi suxqan liman badala bacdi ma banaana marka bidcadu in dadka xaqiiqa looga dhigo waagii hore way xishoon jireen waxay dhihi jireen waa bidca oo waa bidcatu xasana waa gadaalaan ka imaan doonaa bidca xasana maxaa la yihahdaa haddii waqtiga noo simo ayib axaadiistaas way tiro badan yihiin ayadu nafteeda ma raba inaan micnihii aan waqtiga ku dhumiyo laakiin waxaan kusoo koobaya un
baabka isaga naftiisu xadiidka laga wariyo carbaad ibn saariya radi allahu tacala canhu wuxuu ley wacadana rasul llahi sal allahu alayh wasalam mawcidatan baliiqa nabiga calayhi salatu salaam ayaana waaniyey waana aad u xil dheer waanadaasoo wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun qalbigana uu la jalcay indhuhuna ay la ilmeeyeen sababtoo ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahy inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakaluun aw alla subxana wa tacala muminiinta marka calaamadaha waxaa lagu yaqaanaa marka aayadaha iyo xaq iyo runta loo sheego aabbaheeyaa yidhi awowga inuusan taagnaan waxaa la rabaa inuu xaqa uu fiiriyo oo wax barto oo micnihii u dhegeysto culimmada inuu dhegeysto uu raaco uu fiiriyo waxaan yaa bilaabay yaa sameeyey marka muminiintu marka loo sheega aayadaha alle qalbigooda jilca ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeya waanada waxay anfacaysaa dadka muminiinta ayib saa darteed marka wuxuu leeyahay marka nabiga calayhi salatu salaam maalinkaa laba shay ayuu kula dardaarmay marka micnihii waxay yidhahdeen rasuulka allah waxaan aragnaa waanadan inay tahay mid sagootina noo dardaaran nabigu wuxuu yihi alayhi salaam calaykum bitaqwa allah waxaan idinku dardaarmaya cabsida alle subxana wa tacaala alkhawf min aljaliil walcamal bitanziil walrida bilqaliil walistidad lyowm araxiil cali bn abi talib khawf allahi subxana wa tacaala taqwa allahi saasuu ku fasiray alkhawfu min aljaliil in alla laga cabsado walcamal bitanziil qur-aanka alle uu soo dejiyey in lagu dhaqmo walrida bilqaliil waxa ilahay ku siiy inaad ku rahdo walisticdaad lyowm araxiil maalinka safarka loo yahay rixl ilaa daar alaakhirana in loo diyaar garoobo taasaa taqwada alle subxana wa tacala la yihahdaa wuxuu leeyahay marka waxaan idinkugu dardaarmaya cabsida alle subxaana wa tacala wasamcu waaaca inaad ismaqashaan oo istala yeeshaan haddii hatee nin adoona laidin dhiibo uu madax idiin noqdo warkiisa yeela waxaan idinkaga digayaa marka nabiga wuxuu leeyahay marka wainahu man yaciish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira ninkii noolaada aniga gadaashayda ikhtilaafyo badan ayuu arki doonaa facalaykum bisunatii yani ilzama bisunati sunadayda qabsada maxaa kaloo ku xiga sunada khulafaa raashidiin almahdiyiina caduu calayha binawaajid goos dambeedka ku qabsadu leh nabiga lagama hayo mawliidka khulafadiina lagama hayo marka xadiidkan wuxuu ku leeyahay khulafaa raashidiin labadaba lagama hayo maxaa la sameyn marka nabiga wuxuu leeyahy sunadeeda qabsa oo sunadii isaga ma hayo shubahaadka marka la keeno oo la yidhaahdo aayadaha loo daliilsadana qeyb ka mid a waa idin tilmaamaya waa adila caama asalkeedu adilada loo adeegsanaya mawliidka waa banaan yahay waa adila caama ayib وإنه من يعيش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد قوس دمبيتك waxa lagu qabsado يعني lagama fujin karaayo قوس dambeedka ku qabsado leey وإياكم ومحدثات الأمور waxaa idinkaga digaya waxyaalo soo dirin doona gadaalka imaan doona وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا الحديث يبين لنا يعني جانبا عظيما من جوانب الحفاظ على الكناية الأمة wax weyn uu xadiidkaana tusinaya laakiin dadkii aadan micnihii isticmaali lahaa oo qaadan lahaa aaway nin waliba wuxuu rabaa in micnihii uu la yimaado arrin isaga uu rabo hadiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabiga kama tegin dunida wax waliba waa inoo cadeeyey sida xadiidkii hadda micnihii cabdillahi ibn mascuud iyo midkii ka horreeyay idinku tilmaamay ummadiisana micnihii kheyrka waa u tusiyey wuxuu nooga tegey yani muxajatin baydaa layluha ka nahaariha sidaan soo hormariyey ayib saa darteeda marka shareecada islaamku way dhammaystiran tahay ilahina wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين عمر بن الخطاب بخاري waxaa ku jira nin yahuudi ayaa wuxuu yiri ya amiir المؤمنين aayad quraankiina ku akhrineysaan haday yahuudi ku soo degadi lahayd la takhadna dalika اليوم عيد aayad waa taa yiri اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت wuxuu yiri aayadaas waa naqaana meesha ku soo degtay intaas ku micna ku akaaday saadarteed imaam maalik markii la weydiiyey arintan aayada wuxuu leeyahay arin waa ibn maajishun naftiisa ayaa warinaya oo micnihii kasoo warinaya imaamu maalik waana arrinta qatarteeda leh oo dadka ay micnihi ku baraarugsaneen waay diintan ma dhamaystira waxbaan kusoo daraynaa talow ma nabi maxamed wax ka maqnaaday uusan aqoon ayaa adiga ku micnihii ku ifay oo ku soo baxay nabiga calayhi salaam wax ka qarsoonaaday adiga aad heshay miyaa haddii arrinta haa aad tirahda qatarteeda ay leedahay haddii aad tirahda nabiga waa hilmaansanaa anaa diinta wax ku dhamaystirayo mawliidka nabiga iyo saxaabadiisa ma ogan anaa ka cilmi badan waa qatar kale saa darteeda ma bara alyawma akmaltu lakum alyawma أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلهي وحول ومن يبتغي غير إسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين عائشة رضي الله تعالى عنها وحيلادها هذا العجيبة حديث مسروق وكورنا كما في صحيح مسلم قالت وحيتري من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيء من ما أنزل الله عليه فقد أعدم على الله فرية نكي هذا نوي محمد وحي الوسود الجي وحكي مدى أيو قريي waxaad ogaataa
yani ilah ku been abuurtay ya ayuha الrasuulu balliq ma unzila ilayka min rabik wain lam tafcal fama balagta risaalata wallahu yacsimuka min الnaas. marka ma banaana xadiidka bukhaari tawxiid uu ku wariyaa. marka ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay rasuulka allah wixii aan ku dhibnay dadka gaarsii. ayib marka diintan waa dhamaystiran tahay. ninkii yidhahda haddii qof u yimaado anaa diintan maanta dhamaystiraya hadduu yidhaahdo oo diintan waa naaqis hadduu yidhaahdo waxaad ogaanaysaa yani wax aan joogin fi zaman nabiy sal alيه wasalam ayaan dhamaystirayna. arrintaas ayada waxaa waaye waxay imaanaysaa hada alamru muxdiثan ictiqaadan wacamalan oo qowlan oo manhaja noocoo doon ha ahaado yukhaalifu manhaj rasul lah sal wasiiratihi. waxaan leenahay diinta alla subxaana wa tacaala ayaa dhamaystiray. waxa adiga aad la timidna waa bidca. micnihii nabigana alayh salat slam bidcada wuxuu tilmaamay ninkii la yimaado isagaa lagu celinaya. ibn majishun wuxuu leeyahay samictu malikan yaquul man ibtadaca fi اlislaami bidcatan yaraha xasana faqad zacma ana muxamada salى اllahu alayh wasalam khana risala. lanna ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum islaama diina. ninka diintan wax ku soo dara bidca xasana waxa la yihahdo oo u arkaya inay wax wanaagsan tahay wuxuu leeyahay qofka isaga ah wuxuu leeyahay nabi maxamed alayhi salam wuxuu sheegtay in nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam risaaladii uu qiyaamiyey khana risaala. lannu ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay maanta ayaan diintiina idin dhamaystiray wa atmamtu calaykum nicmati nimcadeedan aan dushiina ku taam yeelay waraditu lakum islaama diinan diinta islaamkana idinkaga raali noqday. wuxuu leeyahay marka famaa lam yakun yowmaidin diina yowmaidin iyo xiinaidin waa tanwiinta tanwiin alciwadka la yihahdo ima jumlad inay ka tahay wa ima ciwad can alxarf. wuxuu leeyahay marka famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakun alyowma diina ictisaam imaam shaatibi saasuu leeyahay. hadal kaleo micnihii aad u wanaagsanna waa lagu soo guuriya imaam shaatibi naftiisa ibn qaymina waa uu soo guurinaya hadalka isaga. waxaa weye qofka mubtadica ah wuxuu rabaa sharciga inuu canaad ku sameeyo lakin isagaa naftiisa dhibaayo. waxaa kaloo ku xiga dadka mutashaabihaadka iyo micnihii isku mashaakileeya. bidca waay waa bidca xasana iyo wax la midka ah. wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala aayadda faama aladiina fi quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha min ibtigaءi fitnati waibtigaءi ta'wiilih faqad saxa an caaisha radi allahu tacala canha. caaisha waxaa micnihii ka sugan nabiga alayh salaam in micnihii la weydiiyey. caaisha marka waxay leedahay idaa ra'aytum aladiina yatabicuuna nabig qala rasul lah faqala rasul lah sal alيه wasalam wuxuu yihi marka nabiga la weydiiyey arrintaas ayada huwa aladii unzila calayka alkitaab ayaddaas oo mutashaabihaadka ka hadlaysa wuxuu leeyahy idaa ra'aytum aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum. haddaad aragtaan dadka tashaabuha qur'aanka raacraaca oo ta'wiilaadka iyo ku nool imaam sayuuta ayadiisa qul bifadli illahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxu huwa khayru mima yajmacuun waan keeni doonaa. waxaad ogaanaysaa uu leeyahy iska ilaaliya liannahu waa kuwa alla subxaana wa tacaala yani uu ka hadlay uu sheegay uu ka digay. wa fi riwaayatin faida ra'aytum aladiina yujaadiluuna fi kuwa micnihii ku doodaayo fahum aladiina cana allahu faxdaruuhum saasuu leeyahay. mawluudka nabigeena calayhi salaatu wasalaam culamada waxay isku khilaafayaan zamanka sanadka waa la yaqaana waa caamul fiil maalinkana waa la yaqaanaa. nabigeena alayh salam waa noo tilmaamay maalinka waa maalin isniina waa maalinkuu dhashay maalinku dhintay laakiin sanadku bish u ahaa waa la isku khilaafaya. dhowr aqwaal ayaa jirta fi thani cashara raabic cashara bisha micnihii rabiic alawal way isku khilaafayaan. saa darteed waxaa weye sharciyada islaamku waxay u taqaanaa in bidca u yahay. saa waxaa sheegay abu xafsa taajuddiin alfaakihani raximah llah wuxuu leeyay fi bayaanin anwaaci almawluud wuxuu leeyahay camal walba oo la samaynayo fii caynihi oo xoolay ku bixinayaan maalkooday ku bixinayaan mana laga hayo xilliga nabigeena calayhi salaatu wasalaam. waa arrin bidca uu leeyahay oo micnihii fidayna maalinka maanta la joogo. waxaa kaloo ku xiga ibn xujaaj almaliki raximah allahu tacala fi xukmi almawluud annabowi wuxuu leeyahay saasoo kale isagana waa laga soo guuriyaa in maalmuhu ay isku khilaafayaan ayuu sheegaya. ixtifaalka marka ma banaana. waxaa marka aan soo hormarinay hadalkii nabigeena calayhi salatu salaam alla subxana wa tacala uu yihi laqad kana lakum fi rasuuli اllahi uswatun xasana liman kana yarju llah walyowm اlaakhir. xadiidka micnihii bukhaari iyo muslim ay soo saareen man axdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. ayib intaasi marka waa inta aan micnihii soo tilmaamay mawliidka iyo waxa uu yahay iqaabkiisa iyo waxa uu socdo. adilada dadka banaynaya ayaan laba ama saddex ka sheegaya haddii alla subxana wa tacala uu yihahdo. adilada banaynaya dadka dhahayo mawlidku way banaan yihiin sidaan tilmaamay waxay la imaanayaan adila caama. qolada dhehaysa way banaan tahay mawlidka waxay la imaanayan intooda badan adila caama. waxaa ka mid ah ilahi subxana wa tacala horta wuxuu le itabicuu ma unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min dunihi awliya qaliila ma tadakaruun. ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini ma lam yadan bihi illah
marka bidcada iyo laga hadlaayo iyo xadiidkii aan soo hormarnay wa sharu lumuuri muxdathaatuha wa kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi naar. marka waxaa loo baahan yahay qofka muslimka arrimahaas inuu micnihii u ogaado ayaa loo baahan yahay uusan micnihi ku kaadsoomin. fa akhiiran ikhwaani qolada banaynaysa waxay deliishanayaan qul bifadli illahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu wa khayra mima yajmacuun. ibnu jariir atabari raxmat ullahi caleyhi wuxuu leeyahay waxaad ogaataa arrintaas ayada ah waxaa laga soo guriyaa qul ya muxamed haulaai almukadibuuna bik kuwaan ku beeninaya waxa adiga lagugu soo dejiyeyna beeninaayo alla subxaana wa tacala xaggiisa lagaaga soo dejiyey bifadli illaahi ayuha annaas aladii fadliga alla subxaana wa tacaala oo alla dushiina uu ku fadl yeelay huwa alislaam fadlu llahi wa islaamka. duru lmanhuur liimaam asuyuuti ayay kusoo guriyaan. marka fadliga alla subxaana wa tacaala uu tilmaamay waxaa waaye wuxuu leeyahy qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu wa khayra mima yajmacuun. aayaddu horta waa makiya sideeda banaanba makay kusoo degtay makan ixtifaal ma jirin ayib oo caqiida lasu sheegaya. marka bifadli illaahi wa biraxmadiisana waxaa waye raxmada alla subxaana wa tacaala uuna siiyey maxay tahay waa kitaabkan qur'aanka. fadli illaahi waa islaamka wa biraxmatihi waa qur'aanka. imaam sayuuti dur almanhuur imaam sayuuti markuu soo guurinayey halkaasay ka heleen micnihii waxaa waaye waxay leeyihiin waa raxmada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. marka arrintaas ayada ah culamada mufasiriinta oo dhan ba u laabo ibnu jariir الطabri imaam الqurطubi ibnu kahiir imaam sacdi waxaa waye alandalusi fi kitaabihi baxr اlmuxiit kulli meeshaa doonta imaam shawkani fatxulqadiirka aad meeshaa doontaba tag kutuba tafsirta u tagtid qolkaas aan ahayn imaam asuyuuti raxmat ullahi calayhi waxaan ka ahayn meesha laguma hayo. aayadda labaad ay daliishadaan waxaa waaye waxay leeyihiin litu'minuu biاllahi warasuulihi watucaziruuhu watuwaqiruuhu watusabicuuhu bukratan waasiila. aayaddaas ayada aan waxaa waye laysa tawqiir ma aha yani an nabtadica tawqiirka nabiga weyneyntiisa bidca inaan la imaana micnaheedu ma aha. taas ayada nafteedu waa qalad kale oo meesha yeela sababtoo ah sax ma aha. aayadda kale cumuumiyaadka bal fiirso laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim yatlu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucalimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qabla lafi dalaalin mubiin. ayada nafteeduna daliil uma aha. aayadda kaloo kusoo xigta in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima waa aayadaha ay daliilsadaan daliil uma aha. aayadda kaloo kusoo xigta waxaa subxaana aladi asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladi baarakna xawlahu linuriyahu min aayaatina inahu wasamiic albasiir daliil uma. aayadahaas kulli aan soo sheegnay saabiqa waxay ku tusinayaan markaysa camuumiyaad waxyaala caadi ah camuumiyaadkay ku tusinayaan shaqo kuma laha. waxaadse ogaanaysaa xadiidka kale ay daliilsadeen waxaa ka mid ah xadiidka qofka haddii uu dhinto markaysa asyaam yowma cashuraa oo micnihii nabigu u soomay calayhi salaatu wasalaamna way daliilsadeen. isagana waxaa waaye maalinkii alla subxana wa tacala fircoon uu ka badbaadiyey reer bani israa'iil oo nabigu u yihi annagaa kaa xaq leh ayadaas isagana daliil uma aha. jazakum allahu khayran. waxaa kaloo la mid ah aan rabay inaan kusoo koobo un bidcooyinka waxaad ogaataa waxaa kaloo ka mid aayadaha xadiis ay daliilsadeen xadiis jariir ibn cabdullahi albajri radi allahu tacala canhu man sana fi lislaami sunatan xasana yaraaha man sana fi lislaami sunatan xasan. xadiidkaa isaga ah xadiidkaa isaga ana naftiisu daliil uma aha. xadiidkaasi naftiisu daliil uma aha liannahu wuxuu ku tusinayaa cagsigu ku tusinaya. marka islaamka ninkii bidco u bilaabo way ku soconaysaa ilaa maalinka aakhira way ku soconaysaa isagoon waxba laga nusqaamin taasuu ku tusinaya. ayib waxaa kaloo kusii xiga ikhwaani fi llah hadalka cabdullahi bni mascuud aan ogaana bal saxaabada nabigena alayh slat slaam waxaan u horaysinayna cabdullahi bni mascuud wuxuu leeyahay man kana mustanan falyastani biman qad maat ulaئika asxaabu muxamed salى اllahu alيه wasalam kanuu khayra hadihi اluma wabaruha quluba waacmaquha cilma waaqaluha takalufan qowmun اkhtaarahum allahu lisuxbati nabiyih salى اllahu alayh wasalam ilى akhiri. hadalka waxaa soo saara alxujata fi bayaan almaxaja asharicati lilaajuri iyo jaamic albayaan lilcilm wa fadlihi ibni cabdilbar ayaa lagu soo saaraa. waxaad ogaanaysaa marka ninkii wax ku dayanaya ha ku daydo saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayagaas ayaa ugu wanaagsan. waxay ahayn ummaddan kuwa ugu khayrka badan oo xilligii khayryada nabiga u tilmaamay khayru naasi qarni ayay joogeen ayagaana ugu wanaagsana uu leeyahay. waxaa kaloo uu leeyahay xudayfat ibn lyamaan radi allahu tacala canhu kula bidcatin lam yatacabaduu biha asxaabu rasuuli اllahi sal allahu alيh wasalam falaa tatacabaduuha faina alأwl la yadaca lilآkhiri maqaala faاtaquu llaha ya macashar qura khuduu طariiqa man kana qablikum. hadalkaa isaga ana libana ayaa lagu soo goriya ibn lbata. marka wuxuu leeyahay
wax waliba cibaado waliba oo aysan micnihii ay samaynin saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam in nabiga uusan samaynin ha samaynina ilahay ha ku caabudin han ugu dhowaanina marka taa ayada nafteeda waa hadal aad u qiimo badan hadalkii ubay ibnu kacb ayaa ka mid radi allahu tacala canhu wuxuu yidhi calaykum biاsabiili wasunna fainahu laysa min cabdin calى sabiili wasunna waxaa waaye calaykum biاsabiili wasunna ay ilzamu kitaabka alle iyo sunada nabigeena alayh slat slam qofka kitaabka allah subxaanaه wa tacaala iyo sunada nabigeena alayh slat slam ilzaamana yani oo alla subxaanaه wa tacaala dartii u ooya waxaa waaye ma taabanayso naarta ayuu leeyahay hadalkaa isaga waa hadal naftiisa aad u dheer musanafki ibn abi shayba ictiqaadi ahli suna lilakaai alibana ibn اlbata iyo intaasaa lagu soo guuriya ayib marka hadalkaas cabdllahi ibn mascuud hadalkan hadal ku jiraa jiray fain kana اktisaada واجtihaada an takuna calى manhaji اlanbiyaءi wa sunatihim hadalkaas akhirkiisa ibn mascuud naftiisa waa laga soo guuriyaa oo wuxuu leeyahay waxaa waaye bidca lagu dadaalo waxaa waaye الاqtisaadu fi sunati khayr min اجtihaadi fi اlbidca sunada lagu dhexdhexaadsado ayaa ka wanaagsan bidca lagu dadaalo yidhi hadalka isaga naftiisa way soo gudbinayaan lalakaayi dadka lamidka waxaa kaloo lamid cabdullahi ibn mubaarak wuxuu leeyahay akhi aclam akhi ana almowta alyoma karaamata likuli muslimi laqiya allaha calى الsuna wuxuu leeyahay mowtka waxay karaamo tahay qof walba muslim ah oo micnihii ilahi subxana wa tacala kula kulma sunada isagoo sunadii ku dhegan la kulma karaamay u tahay faina lilahi wa ina ilayhi raajicuun failى اllahi nashku wuxuu leeyahay alla subxaana wa tacaala ayaan u dacwoonaynaa in ay culimmadeeni qeyb ka mida ay tagtay markaysaa saas uu leeyahay bidcadina ay soo muuqatay saasuu hadalkiisa uu ku sheegaya waxa waaye albidca wanahyi can ibn اlwadax ayuu hadalkaa isaga micnihii ku sheegaya waxaan kusoo gebagabeynaya hadalka ibn اlbaطl uu leeyahay wuxuu leeyahay hadal aad u cajiib ah wuxuu leeyahay waxaan sheegay hada اlbaab ma qaalahu mustafa sal اllahu alيه wasalam waamara bihi asxaabuh wuxuu nabiga u yihi saxaabtiisana uu faray wataabiciina min bacdihim biixsaanin oo ka mid ah hadalkaa isaga dadkii uu faray saxaabada nabigeena ala taabiciinta la faray waxaa waye lazuuma sunna wa itibaacu اlaathaar sunadii micnihii la laazimo aathaartii micnihii markaysaa la raaco maa fiihi balaagun wakifaaya ayada ayaa nagu filan wixii alle subxaanaه wa tacaala yani uu soo dejiyey kuwaas kitaabka alle subxana wa tacala kadib markaasuu hadalkaas u waday wuxuu gaarsinaya wman yuطic اllaha warasuula faulaئika maca aladina ancama allahu calayhim min الnabiyiina wالصidiiqiina wالshuhada wالصaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiica saasu micnihii uu hadalkaas saasu ku dhib calى kuli xaal waxaan kusoo gabagabaynayna waxaan leenahay wman yashaaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda waytabic gayra sabiili اlmu'miniin nuwalihi ma tawalaa wanuslihi jahanama wasaa'at masira nin qof alla qofkii raaca waxaa nabiga u yihin calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ama sabiili اlmu'miniin saxaabada meesha ay mareen meelaan ahayn mara waxa waaye waxaa loo fududaynaya waddada uu ku socdo ilahi subxana wa tacala ka baqa bidcadan aan qeybinayno iyo mawluudkan aan asalka lahayn oo ixtifaalkiisa hatee hadda magaaladan looga dabaaldegayo la rabo in la sameeyo wax jira ma aha waxaana leenahay qof waliba qofka arrintaa ayada ku daba dhegan xamaasadii aysan ku qaadinin kitaabka alle iyo sunnaha daliil kala imow haddii la doodo ilaa waan soo tilmaamay siiqada doodga marka ay dhacdo looga baxo waxaa loo bahan yahay qofka muslimka inuu kitaabka iyo sunnada ruqas uu ka haysto wixii ay sameeyaanna yani ay faraana inuu sameeyo waxay ka celiyaan inuu ka ceshtamo laakiin aabbaan raacaya walaalihii iyo culumihii heblow baan raacaya iyo heblow iyo shubahaad iyo waxaan jirin qofku inuu ku noolaado waa wax laga fiicaya wa ilaa huna salaadii casr ayaa soo gashay jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu